Haweeney Shiinaha u dhalatay ayaa dhawaan xabsiga loo taxaabay kadib markii booliisku ogaadeen in ay iibsatay laba cunug oo ay dhashay oo mataano ah, isla markaana ay ku iibsatay lacag dhan caddadeeda $9,000 si ay isaga bixiso deen lagu lahaa una iibsato taleefan cusub oo smartphone-ka ah. Sida ay sheegeen wargeysyada Shiinaha, arrintan ayaa dhacday sanad ka hor markii ay la soo diristay haweeneydan lacag la'aan. Sidoo kale haweeneydan waxa ay sheegtay in ay weysay cid caawisa kadib markii ninkeeda kala tageen. Sidoo kale haweeneydan waxa ay sheegtay in ay weysay cid caawisa kadib markii ninkeeda uu isaga tagay oo uu u diiday in carruurta uu ku biilo. Ninkan oo dhawaan aabba noqon doona oo ku nool dalka Shiinaha ayaa soo jiitay wararka caalamka kadib markii uu 200 oo baako uu ka sameeyay guryo carruurta ay ku ciyaaraan. Sawirada guryahan oo aan caadi ahayn ayaa si aad ah loogu faafiyay baraha ay isticmaalaan bulshada. Ninkan oo ku nool gobolka Waqooyi Bari ee Shiinaha ayay si aad ah u xiiseeyeen warfidyaanka, waxayna ogaadeen in ay 4 maalmood ku qaadatay in uu dhiso guryahan macmalka ah. Xilli dadku ay ku adag tahay iibsashada waxyaabaha cusub ee qaaliga ah, ayaa shirkad dalka Peru laga leeyahay waxa ay sameysay kombiyuutarro laptop ah oo ka samaysan alwaax oo loogu talagalay in la isticmaalo 10 ilaa 15 sano. Qoys ku nool tuulo fog oo ku taalla dalkaasi oo aad u yaqaano kombiyuutarrada oo aad u weyn laakiin dhinaca kalena aan qaali ahayn oo jooga $236 oo kaliya loona bixiyay walwal laptop. Waxayna khubaradu sheegayaan in haddii uu hirgalo mashruucan laptop-ga ah, suuqa uu ka gaari doono qiimo aad u hooseysa oo ah $35. Haweeney Shiinaha u dhalatay ayaa dhawaan xabsiga loo taxaabay kadib markii booliisku ogaadeen in ay iibsatay laba cunug oo ay dhashay oo mataano ah, isla markaana ay ku iibsatay lacag dhan caddadeeda $9,000 si ay isaga bixiso deen lagu lahaa una iibsato taleefan cusub oo smartphone-ka ah. Sida ay sheegeen wargeysyada Shiinaha, arrintan ayaa dhacday sanad ka hor markii ay la soo diristay haweeneydan lacag la'aan. Sidoo kale haweeneydan waxa ay sheegtay in ay weysay cid caawisa kadib markii ninkeeda kala tageen. Sidoo kale haweeneydan waxa ay sheegtay in ay weysay cid caawisa kadib markii ninkeeda uu isaga tagay oo uu u diiday in carruurta uu ku biilo.